Nigeria waa dal federaal ah wuxuuna ka kooban yahay 36 maamul goboleed iyo xarunta dhexe ee federaalka oo ah caasimadda Abuja. Abuja waxaa la aasaasay 80-kii waliba si casri ah si looga dhigo caasimadda Nigeria. Waana dal dimuqraadi ah waxaana shardi ah qofka codeynaya waqtiga doorashada inuusan ka yaraan 18 sano. boqolkiiba 50 dadka dalkani waa muslimiin halka Kiristaanku ka yahay dalkan boqolkiiba 40. Muslimiinta dalkani badankoodu waxay ku nool yihiin waqooyiga halka Kiristaanku u badan yihiin koonfurta. waxaana kala duwan waqtiga la shaqeeyo dalkan. waqooyigu oo muslimiintu ku badan yihiin lagama shaqeeyo jimcaha halka koonfurta laga shaqeeyo axadda. dadka la yiraahdo Nog waa kuwii ugu horeeyay ee degan Nigeria. guud ahaan dadka dalkani waxaa lagu qiyaasaa 200 milyan. waana dalka ugu dadka badan Afrika isagoo sidoo kale ah dalka toddobaad ee ugu dadka badan caalamka. waxaana la qiyaasayaa 2050 in dadka dalkan ay noqon doonaan 400 milyan maadaama ay dalka ugu badan ee mataanuhu ku dhashaan. dhanka badka waa dalka 14aad ee ugu badka weyn Afrika iyo dalka 32aad ee ugu badka weyn caalamka. wuxuuna ku fadhiyaa bad ka badan 900,000 oo isku wareega. waxaana ku nool 250 qowmiyadood oo ugu caansan yihiin qowmiyadaha Hausa iyo Fulani oo 29% ka dadka dalkani. waxaana lagu hadlaa 511 luuqadood waa markii laga reebo 9 luuqadood oo dhowr go'ay. luqadda rasmiga ee dalkan laga hadlo waa Ingiriiska. waxaana xusid mudan in Nigeria looga hadlo 7% guud ahaan luuqadaha ka jira dunida. waxayna dadka dalkani 70% ka shaqeeyaan beeraha. kuwa aad u ixtiraama dadka da'da waxaana ka mid ah caadooyinkooda in dumarka muslimiinta marka la guursanayo aysan fiirin karin ragga jooga xalfadda arooska. kani waa mid mug iyo miisaan culus ku leh qaaradda Madowga ee Afrika isagoo sidoo kale ah dalka ugu qadiimsan galbeedka Afrika. waxayna dadka dalkani alaaba ku faanaan dhaqankooda. Lagos oo 1991 laga qaatay caasimadnimo waa mid caan ku ah dhaqanka sidoo kale waxay muujisaa inay tahay wali caasimadda Nigeria maadaama ay tahay magaalo korisa dhaqanka iyo fanka Afrika. dalkani wuxuu leeyahay shirkad caan ah oo samaysa filimada laguna magacaabo Nollywood. shirkadani waxaa la aasaasay 1960kii waxayna soo aanbaxday oo suuqa dunida soo gashay 1990kii wixii ka dambeeyay. waxayna maanta la loolamaysaa Hollywood iyo Bollywood. dalkani baaxadda weyn wuxuu alla ku manaystay ilo dabiici ah isagoo ah dalka lixaad ee naaftada ugu badan soo saara. wuxuuna dibadda u dhoofiyaa 2 milyan oo fuusto oo shidaalka ceyrinka ah. waxyaabaha uu dalkan soo saarana 70% waa naafto. waxaa aad looga jecel yahay kubadda cagta waxaana u dhasheen ciyaartoy heer caalami ah isagoo ku guuleystay koobka Afrika 3 jeer. kan waxaa ka soo jeeda ninka ugu taajirsan qaaradda Afrika laguna magacaabo Aliko Danko oo haysta lacag ka badan 12 bilyan oo dollar. ayaa mar meel fagaaraha ka sheegay inuu lacag badan bangiga kala soo baxay kadibna uu la tagay gurigiisa si uu u daawado lacagtaasi una xaqiiqsado inuu yahay qof taajir ah.